wararka ka imaanaya deegaanka Janay Cabdalla ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in halkaasi ay ka dhaceen howlgallo culus oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab kuwa ay sameeyeen ciidamada daraawiishta ee maamulka Jubbaland gaar ahaan guutada labaad ee fadhigoodu yahay deegaanka Janay Cabdalla ee gobolka Jubbada Hoose dowlad goboleedka Jubbaland iyagoona garab ka helaya ciidamada militariga dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan guutada lagu magacaabo Danab ee ka howlgasha deegaanada maamulka Jubbaland howlgalkan oo ka dhacay deegaanka Janay Cabdalla ee gobolka Jubbada Hoose dowlad goboleedka Jubbaland ayaa la sheegaya in hoodkaasi lagu qabtay gacantana lagu dhigay 4 mooto nooca loo yaqaano Fekonta oo shabaabku gaadiid ahaan u isticmaali jireen sida la sheegay mootooyinkan iyo xubnihii shabaabka ah ee waday ayaana gacanta lagu dhigay waxa ayna haatan la sheegayaa in ay ku hoolanayeen inay xubnahan ay duurka ku dhoomanaya saadka noocyadiisa ee kala duwan ay gaarsiiyaan sida lagu baahiyay bayaan ee ka soo baxay afka ku hadla telefishinka dowlad goboleedka Jubbaland howlgalkan ayaana la sheegayaa in sidoo kale lagu beegsaday dhowr fariisimo ay leeyihiin ururka Al-Shabaab kuna lahaayeen deegaanka Janay Cabdalla tuulooyin ku dhow halkaasna lagu burburiyay ciidamada daraawiishta maamulka Jubbaland oo kaashanaya guutada Danab ee militariga dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaana muddooyinka dambe sii ballaaranaya howlgallada culus ay ka wadaan gobolka Jubbada Hoose deegaanada ka tirsan iyagoona inta badan bartilmaameedsada ururka Al-Shabaab goobaha muhiimka ay ku leeyihiin deegaanadaasi gobolka Jubbada Hoose dowlad goboleedka Jubbaland kuwa oo inta badan ciidamadu ay ku sheegaan inay ku dhibaateeyaan dadiyowga shacabka ah ee markaasi isdhexgala ciidamada daraawiishta Jubbaland gaar ahaan guutada labaad ee fadhigoodu yahay deegaanka Janay Cabdalla ee gobolka Jubbada Hoose dowlad goboleedka Jubbaland ayaana howlgalkan ka sameeyeen dhulka hoodka ah ee ku dhow halka lagu magacaabo Harboole gacantana ku dhigay 4 mooto nooca loo yaqaano Fekonta oo shabaabka la sheegay inay isticmaali jireen haatan waxaa la sheegayaa in gacanta ay ku hayaan xubnahan iyo macallin Fekontoodaba ciidamada daraawiishta maamulka Jubbaland oo howlgallo adag maalmaha dambe ka wada deegaanada maamulkaasi ee Jubbaland gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose